Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada muuqaalkan aan kaga hadli doono maanta Allah subxaanahu wa tacaala hadduu ka raali noqdo. Ducada la akhristo marka uu qofka ka soo kaco hurdada. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ina baray dhowr duco oo la rabo inaan akhrisano markii aan hurdada ka soo kacno. Maadaama hurdada ay tahay dhimasho yar, marka Allah subxaanahu wa tacaala hadduu soo nabad kiciyo waa inaan Allah subxaanahu wa tacaala uga mahadnaqno acmaal wanaagsanna aan maalinkaas Allah subxaanahu wa tacaala fursadana siiya aan ku qurxino. Ducada nabiga sallallahu calayhi wasallam oo na baray waxay leedahay sidatan: alxamdu lillaahi alladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur. alxamdu lillaahi alladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur. alxamdu mahad oo dhan lilaahi allah bay u sugnaatay, alladii allahaasoo axyaanaa na nooleeyey, bacda maa amaatana markuu ina dilay kadib, wa ilaya xaggiisa bay ahaatay annushuuru u laabashada oo Allah subxaanahu wa tacaala baa ina soo saarayo. alxamdu mahad oo dhan lilaahi allah subxaanahu wa tacaala bay u sugnaatay, alladii allahaas bay mahad dhan u sugnaatay axyaanaa na nooleeyey bacda maa amaatana markuuna dilay kadib, wa ilaya xaggiisa bay ahaatay annushuuru u laabashada oo marka aan dhimano Allah subxaanahu wa tacaala baan u laabanaynaa asagana na soo saarayo. alxamdu mahad oo dhan lilaahi allah bay u sugnaatay, alladii allahaasoo axyaanaa na nooleeyey bacda maa amaatana markaan dhimanay kadib, markuuna dilay kadib, waa ilay xaggiisa bay ahaatay annushuuru u laabashada. marka ducadan baa la rabaa marka qofku hurdada kasoo kaca inuu akhristo uu Allah subxaanahu wa tacaala u mahadnaqo maadaama maalin kale oo cusub oo Allah subxaanahu wa tacaala na siiyey. marka ducadaad garanaysa insha allahu tacaala markasta ku dadaal in akhrisid markaa soo kacdid. haddaad garanayn insha allahu tacaala isku day inaad xifdisid. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.